السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابنا إنها شعبك. halka waxaa soo socda Sheekh Maxamed oo ayaamahan aad ii soo weydiinayseen. Sheekh Maxamed ayaamahan ma uusan soo gelin baa la yiri kanaalka maaragtay indhaha shacabka quraankii ama baraarujintii iyo waxyaabihii aan kala socno su'aashaas dadka aad bay ii soo weydiin. Hadda ugu dambeysay waa la soo weydiiyay. Markaan waxaan dhahay war ninka imtixaanaadu ku jiray hawshu isku kari laayahay labada arrimood isku wadi laayahay. Marka asxaabtaadi ku xirneed kanaalka ku soo weydiisay maxaad dhihinaysaa Sheekh Maxamed? horta waayada salaam dhamaan daawadayaasha indhaha shacabka meel walba joogaan horta casharadii maana joojin laakiin waxa ay bilowday sanadkii ugu dambeeyay cashar examkii qaybtii sanadkii ugu dambeeyay sanadka kale u gudbi lahaa ayaa hadda soo galay marka hadda shaqadii sida ab hadda idinku sheegay laba meel waa ka qaban waay marka hadda focuskii imtixaanadii ayaa saaray oo hadda week kadib insha Allah gali doono oo ana badan yihiin markaas kadib insha Allah markaas war cusub waa xalay waxaan ku arkay Sheekh Maxamed oo adigoo diyaarinay ducooyin iyo barnaamijyo noocaas ah ma waxa isleedahay wax duco yar iyo aad u tuurtid walaalaha ay ku sii sugaan macnaha maxaad diyaarsanaysaa ducooyinka sax ahayn ducooyin aan naftida u isticmaali karo oo insha Allah markaan meesha waxa biya marayna aan dhameeyo markaasna ducooyinka hadeen soo gelin karo idin soo gelinaya maanta dharkii oo calanka Soomaaliya iyo baad ku labisan tahay kitaab quraan ahna waa wadataa kawar maanta ma sii xujra maanta istiqaadaan noogu martaqaado walaashay martaqaaday marka corona soo saaray haddii Ilaahay raado waxaan Ilaahay ugu rajaynayaa inuu Ilaahay aqbalo aad baan ku salaamayna anaga. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.